رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. kitaabkeenii tajriidka ahaa waxaan wax yar kaga nasanaynaa caawa inaan bal isku guubaabino 10 maalmood ee aanu ku jirno maxaanu qabanaa, seese uga faa'iidaysanaa 10 dilxij. ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista addoommadiisa uu u fidiyo wax sahlan ma aha, ma fududa. waa naxariis aada iyo aada u weyn, raxmad ayuu dadka u yahay. sidaa darteed baa allah subxaanahu wa tacaala marba marka ka dambaysa wuxuu ummadda u soo bandhigaa, soona marsiiyaa mawsim qiimo badan, mawsim cajaa'ib leh, mawsim ay ku helaan makfiro iyo dembi dhaaf. sidaa darteed ayaa 10 maalmood ee bisha aanu ku jirno waxay ka mid tahay mawaasimta khayrka ah oo ay ummaddu kaga faa'iidaystaan si ay u helaan dembi dhaafka ilaahay subxaanahu wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ma jira ayaamo ka khayr badan camal saalixa la qabto looguna jacayl badan yahay alla xaggiisa 10 maalmood. waa 10 dilxij. ma jira camal ilaahay uu kaga jacayl badan yahay 10 maalmood camalka saalix ee la qabto. saxaabadu way yaabeen, jihaadka waxay u arki jireen camalka ugu sarreeya ee la qabto. markaasay dhaheen, walal jihaadu yaa rasuul allah, xataa jihaad kama fadli badna miya? xataa kama fadli badna buu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam, ilaa rajul ama qof baxay naftiisa iyo maalkiisa khatar geliyey, waxna aan la soo noqonin ma ahan. wax uu la soo laabtay ha yaraatee ma jirto. ninkaasi waa laga yaabaa inuu la fadli dhammaado ama uu ka fadli bato, ama inta ka soo hartay oo dhan 10 maalmood camalka saalixee la qabto yaa ilaahay agtiisa loogu jecel yahay subxaanahu wa tacaala. hadday soon ahaan lahayd, hadday sadaqo ahaan lahayd, hadduu ahaan lahaa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, hadduu ahaan lahaa qiyaamuleyl la sameeyo, 10 maalmood camal kasta oo la qabto wax camal oo saalixoo ilaahay xaggiisa loogu jecel yahay oo ayaga aan ahayn ma jirto. maxaana laga rabaa marka? waxaana laga rabaa 10 maalmood inaan ka faa'iidaysano. soom baan uga faa'iidaysanaynaa, akhrin qur'aan baan uga faa'iidaysanaynaa, dikri allaan uga faa'iidaysanaynaa, khayrka iyo wanaagga inaan samaynaan uga faa'iidaysanaynaa. waayo waa mawsim cajiib leh. shalay baan ramadaanka ka soo baxnay walaalayaal, dadku way af xirteen, taraawiix bay u dareereen, dadkay afuriyeen, wanaag fara badan bay sameeyeen, ilaa ay sameeyeen 10 dambe tahajud ay u istaagaan ilaahay subxaanahu wa tacaala. qaarasay u taagnaayeen lugahooda bararay, qaarasay u taagnaayeen istaagi waayey oo fadhiisto fadhi ka tukanayay, qaaraa kuraas loo dhigay intay taagnaan waayeen waxay raadinayeen ilaahay inuu u dambi dhaafo subxaanahu wa tacaala. waraahdooda waxay ahayd, allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. allaha cafinta jecelow iska kay cafi. way ku celcelinayeen
say makfirada iyo dembi dhaafka alla u helaan. 27 bay soo mareen oo loogu rajo badnaa in leylatulqadriga la helo, hadduusan ka hormarin ama uusan kadib dhicin. masaajidada la buux dhaafiyey, intaa ilaahay bay gacmaha u hoorsanayeen. mawsim waaye, khayr laga helo, makfiro laga helo, dembi dhaaf laga helo. intaa waxay mu'miniinta raadinayaan ma aha xoolo adduun oo laba jibaaran inay helaan. in yar oo ku filan ay cibaadada u kaalmaystaan hadday helaan, inta kale diinta ilaahay ayay u qadiman jireen, wanaag bay ku samayn jireen. masaajidka allah inay galaan bay ku samayn jireen. salafkii hore iyo dadkii hore waxaa laga wariyay hadduu suuqa aado maalintaa wuxuu cuni lahaana uu ka soo helo masaajidkuu soo aadi jiray. allahu akbar. waa raadinaa, waa helnaa, alxamdulilah ma dhahno. waa raadinaa, salaadaa nooga tagta. waa raadinaa, markaan helnaa sii macaansanaa. rakcada koowaad baa nagu dhaafta. nin dadkii hore ka mid ahaa muxuu yiri 40 sano weligiisa ma ark salaada aan ku jiro, macnaa safka hore aan ku tukan jiray oo aan imaamka ahayn. kalaama 40 sano haddaan safka hore ku tukana, casr gadaal baan ku tukanaa, maqrib haddaan safka hore ku tukana, cisho waana dhaafaa. inta adduunaan raadinaa, adduunaan ku jaangoynaa, mana hayno. allaahuma inaka cafuwun tuxibu lcafaa bay ahayd, waa laga soo baxay. isla markii hal maalin baa la ciiday, kadibna la xirtay. man saama ramadaan, qofka inta ramadaan sooma 6 shawaal ka mid ah ka dabageeya, waxaa ajar ahaan loo qoraa sidii qof dahri ama sanadkii oo dhan soomay. waa mawsim kale walaalayaal. qacd ayaan nasanay. waa kana dulxaj, waa tana oo dulxaj aan galnay oo la leeyahay camal la qabto ilaahay agtiisa loogu jecel yahay ma jiro. ma keliya maaha, camal kasta oo saalixa ayaad qaban kartaa. qofkii soomaa fadli iyo wanaag buu leeyahay. dumarka macduurka noqday soonku u suurageli waayey, aaway tasbiixdii, aaway subxaana allaahidii, aaway allahu akbartii, aaway dikrigii ilaah subxaana wa tacaala. aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. aaway caada igu dhacday ku leedahay, markaasay cidiya waxay marsanaysaa rinji. maxaa u yeeshay? salaad layguma laha. haddaan salaad lagugu lahayn maa soo dhowaa. haddaan salaad lagugu lahayn, aw xuski ilaah subxaana wa tacaala. waladikru llahi akbar wallahu yaclamu maa tasnacuun. dikriga ilaahayaa wax kasta ka weyn buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. inaad ilaahay xusto, ood ilaahay weynayso, ood ilaahay subxaana wa tacaala mar walba aad magaciisa iyo dikrigiisa aad sheegto, si ilaah asagana uu cirka kaaga xuso subxaanahu wa tacaala. fadkuruunii adkurkum, isheega waa idin sheegayaaye, ixusa waa idin xusaa. ninkii naftiisa igu xusaa, nafteedaan ku xusaa buu dhahay alle. kii mala dhexdooda igu xusana, mala ka khayr badan baan ku dhex xusaa. qofkii ii yimaada asagoo tartiib u socda, orod baan ku qaabilaa. haltaaga qofkii iisoo dhawaada, dhudhun baan ku qaabilaa. dhudhun qofkii iisoo dhawaadana, bac baan u dhawaadaa buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. 10 ayaamood, 10 maalmood, waa 10 si qaas ah farta loogu goday. waa 10 mudan qofka inuu uga faa'iidaysto. waa 10 mudan qofka inuu ilaahay camal saalixa u qadimto, u hordhigto. waa 10 mudan in ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa kari wanaag qofka uu ku sameeyo walaalayaal. khaasatan maalinta sagaalaadka ah, 9ka imtixaanaa carafo ee aan soomo, waxaan ugu ajir xisaabsadaa buu dhahay nebiga sano tagtay intuu soo socoto. maalinta sagaalaadka ah soonka la soomo 2 sano dembigooda qofka loogu dhaafaa, sano tagtay iyo mid soo socota, sidii rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. aw dadkii dembi dhaafka rabay, aw dadkii raadinaya inuu ilaahay cafiye subxaanahu wa tacaala. war aawa dadkeenii dunuubta iyo dembigii macaasida naga batay, webi baa naloo dhiga naga dhaqa. waa 9ka carafo.
sanad tagtaa lagaa dhaqayaa itu soo socota suu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. haddaba maalintaa sagaalaadka ah maalin dadka xujayda ah dee ay taagan yihiin bannaanka Carafo. ilaahay baa usoo dhowaanaya subxaanahu wa tacaala, wuu isku soo qurxinayaa maalintaa ilaahay sagaalaadka addoommadiisa. bannaanka iyo saciidka Carafay taagan yihiin, malaa'igtiisu ugu faantamaya. bani aadam waaye, wuxuu ugu faantamayaa malaa'igtii aan dembiga samaynaynin, sida ilaahay noo sharfay subxaanahu wa tacaala. war ma u jeedin addoommadayda shucthaa way basaasan yihiin oo timahooda nadaafad ma leh, saliid ma leh, shanlana ma laha. wabaraa way booran yihiin, dhar cadcad ah ayay wataan. ya'tiina min kulli fajin camiiq, waxay iiga yimideen makaan kasta oo fog buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. meel kastoo dheer ayay iiga yimaadeen. daday diyaaraddu soo waday ay marnaba istaageen 20 saac wax u dhow say maka u gaaraan. walaalayaal, ina awala beytin wadica linnaas laladii bibakkata mubaarakan wahudan lilcaalamiin fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahiim waman dakhalahu kaana aaminan.